waxaan ogeysiinayaa dhammaan ganacsadayaasha gobolka Sool bari aroor wax meherado furan ma jirto xaaladii waxay isku bedeshay xaalad xun shalay dagaalkii ilaa maanta waa socdaa dibay maraysaa war laa ilaaha illa allah waxaan dagaalka tabajir ku kacay war yaa muslina war kaca bari meherad shaqaynaysaa ma jirto waa la banaan baxayaa hadday noo hergasho goobta dagaalkaan aadayna waxaan leenahay kaca war ragow kaca miyaydan dhiig lahayn miyaydan dhiidhiyayn war waxaan maraya waa dhulbahanta war waxaan waa dalkeennii war laa ilaaha illa allahu bashaakadii maraysaa war kaca ummadda islaamka meel kastay joogaan waxaan baaq u dirayaa ganacsatada gobolka Sool uqaasha culimada dhalinyarada dumarka waxaan leeyahay laga kaco waxaan leeyahay tollaay waxaan leeyahay islaama waxaan leeyahay culimada waxaan leeyahay haweenkiime war sidee u adeeganaa talkeena dhamaanaya war sidee u cunaa u qosol raggeeniyo meedkoodii wada yahay war damiirkii xaq u aaday islaamnimadii xaq ay aaday tolnimadii xaq ay aaday waxaan leeyahay haweenka gobolka Sool raggeeni wuu dhamaaday ilaa tawajirkii meedkiisii baa la keenay maanta dhamaanaysa uqaashi meeye wax garadkii meeye hantiilayaashii meeye bari waa in la isu soo baxo waa in la tago goobta ay dhibaatada ku jirto waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay soo gaadhaan baa ku diraya dawladda tabarta yar ee jaagaatu inay naga dhex baxdo inay naga dhex baxaan baan u dirayaa dawladda tabarta yar Muuse Biixi inuu naga dhex baxo manni baan rabno oo mannihin waxaan baa ku dirayaa dawladda federaalka islaamka muslimiinta waanu dhibanay hadda halkan uu sheegay annagoo ah dhalinyaradii gobolka Sool gaar ahaan haweenkii ayaa kacay haweenkii baa abaabulay waxa tuman waa rag waxaan leenahay annagu hadda nabadeen baan taaganahay labada beelood in Ilaahay subhanahu wa ta'ala beerkooda burcad isku mariyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barina inuu nasr khayr qaba noo soo celiyo